wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad joogtaan soo dhawaada sida Iiraaniyiintu iyagu ay u fashileen Mareykanka iyo waliba Shiinaha door intee leeg ayuu ka qaatay maxaa ku qarsoonaa daaha gadaashiisa asbaabihii keenay fashilkii ugu weynaa ee Mareykanka muxuu hadda qorsheynayaa soo dhawaada meel kasta oo aad joogtaan tabintan ayaan kugu soo gudbin doonaa wararkii ugu waaweynaa uguna dambeeyay sheekooyinka ugu xiisaha badan ee laga qorayo doorka Shiinaha iyo daaha gadaashiisa waxa uu ka sameynayo Tehran iyo waliba magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi waliba waxa laga hadlayo waxay tahay sidee Iran ugu guuleysatay inay fashiliso quwadda adduunyada ugu weyn si aad macluumaadkan u heshid waxaan ka codsanayaa channelka subscribe inaad saartid si share gareysid muuqaalkana like aad ku dhiirigelisid su'aal ayaa la isweydiinayaa Iran ma dhaba in America ay ka adkaatay su'aasha ugu weyn oo taasi ka sii dambaysa ayaa ah yaa burburiyay bartilmaameedyo badan balse su'aasha dhabta waxay tahay yaa gaaray ujeedooyinkiisii istiraatiijiga ahaa saddexdaasi su'aal markaad isweydiisid hubaal maskaxdaada waxa ku soo dhacaya in gibi ahaanba yool kasta uu lahaa Trump iyo waliba dowladdiisa Mareykanka wax kastay lahaayeen waa ay fashilmeen dib aan ku celiyo Mareykanka wuxuu dagaalka galay isagoo haysta awood ciidan oo aad u sarreysa waliba ka sarreysa tan Iran wuxuu haystaa diyaarado dagaal oo casri ah gantaalo meelo fog gaari kara diyaaradaha xambaara diyaaradaha dayax gacmeedyo sirdoon iyo waliba qalab aan caadi ahayn difaacyo gantaalo saldhigyo military oo ku yaala dunida Iran ma haysato awooddaasi haddana bilo yar kadib Iran waxa muuqata inay gaartay yool istiraatiijiya iyo dharbaaxo kulul oo ku dhufatay maamulka Mareykanka markaasi dib aan ku celiyo Mareykanka wuxuu qorsheynayay muddooyinkii ugu dambeeyay arrin istiraatiiji oo ah in Hormuz gacanta Iiraaniyiintu uu ka bixiyo sidoo kale waxa uu daneynayay in dowladda Iran la fashilo isla markaana gibi ahaanba la burburiyo laakiin haddii aan ku xasuusiyo 17 bisha August 2026 oo maanta isniina maraakiibtu maraysay Strait Hormuz wali waxaad moodaa inay aad uga yaraadeen shalay toona kumaba sii jirin maraakiib aad u yaraya martay warbixinada cusub waxay muujinayaan xiisadda in saameyn ay ku yeelatay qiimaha shidaalka iyo dhaqaalaha caalamka taasi micnaheedu waxay tahay in Mareykanka xitaa awoodiisii ay awoodi weyday in Iran wixii uu rabo uu ka samaysto Iran military ahaan kama awood badna Mareykanka laakiin maxaa caawiyay Mareykanku wuxuu muujiyay awood ciidan oo aan caadi ahayn balse waxa ku adkaatay inuu gaaro yoolkiisii awooddaasina u bedelo guul siyaasadeed iyo go'aan kama dambaysa waxa jiray dhinac door weyn ku lahaa wax kastoo dhacay waa dowladda Shiinaha uma baahna ciidan badan inuu u diro dalkaas Iran mid kamid ah qaladaadka la fahmi karo doorka Shiinaha ayaa ah in dadku qaarkood ay yiraahdaan Beijing waxay qasab ku ahayd Iran inay u dirto diyaarado dagaal maraakiib ciidan fara badan taasi ma ahayn laga maarmaan laakiin haddana Iran way ka maarantay markaa Iran Shiinuhu wuxuu adeegsan karaa xeelado casriyeysan oo aan caadi ahayn wuxuu adeegsaday xiriir dhaqaale isagoo iibsanaya sanado badan shidaalkii Iran qiimo jaban ah ku iibsado laakiin Iran faa'iido bay u ahayd cid ka iibsanayso kale ma jirin laba shabakado ganacsi iyo kuwa maaliyadeed teknolojiyo markaasi ama teknolojiga isticmaalka markaasi walxaha WS ka la yiraahdo ama laba loo isticmaali karo waliba drone-ka laga sameeyo iyo marka waxyaabaha kale ee qarxa dhanka kalena warshadaha iyo waliba waxyaabo kale loo isticmaalo oo dual use loo yaqaano marka xiriir ganacsi oo qoto dheer iyo u diyaar garowga dhibaatooyinka tamarta marka Shiinaha Iran waxa uu ka caawiyaa mar walba aad arkaysay waqtiyadii ugu dambeeyay istiraatiijiyad sax iyo waliba sidii Iiraaniyiintu ay isaga difaaci lahaayeen Mareykanka haba noqdeen dhanka sirdoonka Iranka ama Iiraaniyiintu dhaqaale ahaan aad bay u liiteen laakiin Shiinaha inuu iibsado mid kamid ah waxyaabahoodii ugu muhiimsanaa waxay ahayd arrin aad iyo aad u caawisay marka la eego dowladda waddankaasi Iran maxaa yeelay dakhligaasi ka soo xaroonayay waxay ahayd isha ugu weyn iyagu ay ka helaan waa sax waa dal ballaaran waa dal awooda in wax badan uu sameeyo Iran laakiin dhanka dhaqaalaha faraha badan ee uu ka helay shidaalka markaasi Iran ee Shiinaha uu ka iibiyay wax weyn ayay u goysay sanado badan ayna ku soo caanamaaleen markaa Shiinaha waxyaabaha uu ka caawiyay oo aan ka hadlaynay waxay ahayd qalabka elektarooniga nidaamka isgaarsiinta
qalabka hagista marka la eego ee raadarada xasaasiyaal ama dareemayaal mashiinada warshadaha qaybaha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn qalabkii loogu talagalay ee haddaba aan ka hadlaynay dual use-kay u badnaayeen iyo arrinta ugu weyn oo ah dhanka dayax gacmeedka marka warbixin cilmi baaris oo la sameeyey ayaa lagu tilmaamay tiknoolajiyadda shiinaha iyo dayax gacmeedyadu in ay gacan ka geysteen dagaalkii ugu dambeeyey iiraan ay la gashay maraykanka iyo israa'iil iyo weliba inay beddesho xaaladda iyo khariidada bariga dhexe marka ma jirto ilaa hadda caddayn cad oo lasoo bandhigo maraykanku ay heleen laakiin waxaa muuqata wax kasta oo iiraan culays lagu saaray inuu ka caawiyey haddii ay noqon lahayd xayiraadii dhaqaale meel ay ka neefsadaan bay noqotay iiraaniyiinta oo shiinaha iyagu ay markaa isdhaafsi ganacsi ay galaan maraykanku wuxuu saarayaa cunaqabateyn iiraan waxaa laga xirayaa suuqyada reer galbeedka dakhligeeda shidaalka hoos ayaa loo dhigaya laakiin iiraan waxay sii noqonaysay mid dhaqaale ahaan had daciifto washington waxay rajaynaysay teheraan ugu dambeyn inay isdhiibayso ama aqbasho shuruudaheeda laakiin haddii waddan kale oo dhaqaale ahaan weyn uu si toosa u iibsanayo shidaalkaada xitaa haba jabnaadee marka la ego mashiinadii cadaadiska waxay noqonayaan kuwa aan shaqaynaynin marka la ego shiinaha si kasta iyo weliba diyaargarow kasta uu isagu waxaad moodaa wax kasta inay u muuqdaan inay si fudud aysan ku dhammaan karaynin marka la ego dagaalkan iiraan waxay dooratay dagaal aan sinayn macnaha dagaal aan sinayn maxaa loola jeedaa iiraan waxay isku dayday in maraykanka ay ka hortagto laakiin dariiqad iyo istaraatiijiyad iyadu ay dhigatay bay ahayd iiraan ma dooran dagaal caadi ah balse waxay xoogga saartay gantaalada ridada dheer saldhigyada militariga maraakiibta kaabayaasha tamarta iyo weliba shabakadaha gobolka iyagoo adeegsanaya meelaha maraykanka uu ka nugul yahayna ka garaacaysa markaasi tani waxaa loo yaqaanaa baa layidhi mid ka mid a dagaal aan sinayn markaa dalka daciifka ah wuxuu isweydiinayaa sidee ayaan kharash yar ugu geysan karaa dhaawaca ugu badan markaa iiraan iyo maraykankana waa sidaasi qarash yar oo diyaarado dronisa iyo weliba gantaalo ridada dheer ayay iiraan ugu guulaysatay inay ku dhaawacdo quwadda adduunyada ugu weyn arrin kale oo hadalhayn badan dhalisay ayaa jirta markaasi waana arrinta xiisaha leh ee marinbiyoodka hormus waa mid ka mida meelaha ugu nugul ee marka la ego dowladda maraykanka iyo weliba dhammaan wadamada reer galbeedka waxaad aragteen inuusan ahayn hub caadi ah hormus waxa uu ahaa hub ka duwan hubabkii hore aad u arki jirteen ama hubkii hore aad u arki jirteen waxaa laga yaabaa tan inay tahay qodobka ugu muhiimsan ee aanu ka hadlayno iiraan waxay ogaatay in hubkeeda ugu xooga badan inuusan ahayn gantaal ama xitaa hubka wax gumaadee nuclearka iiraan haddii ay samaysan lahayd nuclear maxay samayn lahayd miyay isticmaali kari lahayd ma isticmaali kari lahayd marka ama ma aysan awoodin laakiin maxay awoodaa waa gantaal oo nuclear ah kana awood badan marka ay doontan iyadoo ay xirayso marka ay doontan iyadoo ay furayso marka waxa laga yaabaa ama waxa lagu tilmaamay inay tahay arrin juqraafiyadeed street hormus amaba marinbiyoodka hormus mid ka mid a marinada ugu muhiimsan caalamka iiraan uma baahna markab kasta inay burburiso umana baahna xitaa inay buuxiso oo waqti kastaba iyadoo halkaasi ay geeyaan maraakiib marka waxa ku filan inay abuurto xeelad shirkad maraakiib ay yidhaahdaan maritaanka halkaasi waa khatar iyadoo ay usii marayso hal drone oo laga soo tuuray darafka ugu xageeya ee dalkaasi iiraan ee lagu beegsanayo marka maraakiibta halkaa maraysa taasi markay dhacdo caymiska maraakiibta ayaa aad u qaali u noqda shirkadaha maraakiibtu way ka baqayaan maraakiibtu waxay markaasi bedelayaan wadooyinkooda qiimaha shidaalka wuu kacayaa dhaqaalaha adduunkana wuu saameynaya intaas yoolba iiraan way gaartay iyadoo adeegsanaysa gantaalo aad iyo aad u jaban ee lidka maraakiibta iyo weliba drones aan markaasi qiimo badan ku fadhin marka iiraan waxay dhaqaalaha adduunka ka dhigtay qayb ka mid a dagaalka haddii iiraan saldhig military ay weerarto saameyntu waxay noqon kartaa mid military laakiin haddii ay khalkhal geliso maraakiibta hormus saameynteedu waxay noqotaa mid caalami ah sidaas ayayna ku guulaysatay qiimaha shidaalka ayaa kacay caymiskii waad u jeedaan shirkadihii ganacsiga way walaacayaan aasiya way saameynaysaa yurub way ololeysaa maraykanku waa kaa halkii marka caag ee dieselka ama markaa shidaalku waxa lagu iibsanayo aad iyo aad baa wareer uu ka haystaa markaas marka maraykanku wuxuu galay
xaalad siyaasadeed oo adag markii horena xaalad military ay ka bilaabatay. Washington waxay wajahday laba doorasho marka. Haddii ay sii wado weerarada, Iran waxay sii wadi kartaa jawaab celinteeda. Mar walbana ninka jawaabta ugu dambeeya bixiya ayaa guusha iskale. Dagaalku wuxuu noqon karaa mid qaali ah. Qiimaha tamarta ayaa kacaysa. Xulafadii Mareykanka cadaadis ay ku jiraan. Qatar dagaalku inuu sii fogaado weliba uu sii ballaarto. Laakiin haddii Washington ay joojiso, Iran waxay dhihi kartaa Mareykanku wuxuu awoodi waayey inay markaa inuu nagu qasbo wuxuu doono isaga ama shuruudihiisa markaas. Taasi waxay keentay markaa Mareykanka ujeedooyinkii uu ka lahaa gebi ahaanba meesha inay ka baxaan. Maxay ahaayeen ujeedooyinkii Mareykanka markii hore uu la soo shir tagay oo uu doonayay inuu muujiyo yiraahdo waa in Iiraanay aad si cad u fulisaan markaa. Ujeedooyinku waxay ku cad. Washington waxay rabtay kow in la burburiyo barnaamijka nuclear-ka, in la wiiqo dowladda Iiraan, in nidaamka Iiraan la bedelo, in la burburiyo awoodda gantaalada, in Hormuz dib ay u furto, in Tehran lagu qasbo wada hadal, inay isdhiibaan, regime change in la sameeyo, in laga hortago dagaal gobolka oo dhana, in la burburiyo dhammaan xulafadeeda markaas. Maxaa ka hirgalay? ilaa hadda hal ujeedo oo guula markaasi ma jirto. Marka Shiinaha lafsadiisu meeshan faa'iido ayaa ugu jirta. Waxaa la dhihi karayaa guulaystaha istaraatiijiga ah ee dagaalkan. Mar walba oo dagaalkan uu isagu sii socdo, Mareykanka lugaha dhiiqa ayuu la sii galayaa. Iyaguna faa'iido ballaaran bay ka sameynayaan. Waxayna awoodayaan khatar hor leh inay ku abuuraan dowladda Mareykanka marka. Dhiigbax dhaqaale, military ahaan, dal yar oo soo koraya oo 50 sano cunaqabateyn ay saarnayd ayaad ku fashilantay. Tani waxay siinaysaa marka awood ballaaran oo dowladda Shiinaha ah. Waxaana Shiinaha lagu tilmaamayaa guulaystaha istaraatiijiga ah ee mustaqbalka. Maxaa loogu tilmaamayaa marka? Shiinaha uma baahna ayaa la yiri Iran military ahaan inuu u diro maraakiib si Mareykanka looga adkaado. Ama Mareykanka ujeedadiisu ma ahayn in la qabsado marka Iran ujeedadoodu ma ahayn iyo Shiinahaba inay qabsadaan Washington, New York, Minneapolis iyo weliba kuwa kale Mareykanka ku yaala. Laakiin tani waa qaybta ugu xiisaha badan. Shiinaha guushiisu ugu fiican waa in Iran ay toos u jibiso Mareykanka. Mareykanka qarash badan ayaa kaga baxaya. Halka Shiinaha uu booskiisa soo xoojinayo marka. Quwadda koowaad adduunyada waa Mareykanka. Yaa ku xiga? Ruush ba ku jira hadda kuma jiro. Ruush wadan iska caadi buu noqday marka Ukraine ba iska celcelinaysa. Labaad waxaa soo galay Shiinaha. Halkan marka booskii dhaqaale ahaan haddii uu isagu dhibaatoodo, Shiina oo dhaqaale ahaan koraya aad bay u caawinaysaa marka. Isagoo rasaas aan ku ridin ayuu isagu booska markaasi ku soo dhawaanaya. Fursadda koowaad waa tamarta. Shiinuhu wuxuu muujinayaa nidaam tamar oo kala duwan oo aad u adkaysi badan marka. Fursadda labaad waa diblomaasiyadda. Shiinuhu wuxuu soo bandhigayaa awood Iran ay kula hadli karto dalalka Khaliijka. Khaliijku waxay rabaan inay ka nabad galaan gantaalka Iran. Xal haddii ay rabaanna uma marayaan Washington. Waxay marayaan Shiinaha. Waa fursad kale. Fursad labaad oo diblomaasiyad baa jirta. Shiinuhu wuxuu soo bandhigi karaa awoodiisa xitaa meel ka baxsan marka la eego wadamo ka baxsan oo ishayaan Yurub iyo weliba wuxuu dhexdhexaadin karaa Iran. Waa fursad kale. Fursadda kale waxay tahay dunida koonfureed. Beijing waxay markaa waqti xaadirka ku doodaysaa in faragelinta Mareykanka ay dhalinayso xasilooni darro. Halka Shiinaha uu isagu soo saarayo miiska wada hadal. Barashada dagaalka. waxa uu Shiinuhu si cad u bartay siday u shaqeeyaan diyaaradaha dagaalka Mareykanka, gantaalada, difaacyada Mareykanka ee gantaaladiisa, droneska, sirdoonkiisa, saadkiisa iyo dagaalka electronic. Taas oo si weyn u caawinaysa markaas. Fursadda shanaad ee Shiinaha halkaasi kaga muuqanaysa waxay tahay mashquulinta Mareykanka. Maadaama Shiinaha meel istaraatiiji u tahay Aasiya isla markaana mustaqbalka uu rabo Taiwan inuu soo celiyo, meel buu lagu mashquuliyo marka dhiigbax weyna ku noqonaysa. Heer aad maqlaysid Mareykanka hubkiisii iyo weliba gantaaladiisii inay gabaabsi yihiin oo aysan markaasi suuragal u ahayn inuu difaaco wadamada Khaliijka. Iska badaa Khaliijka, Israel baa laga hadlaya. Canugii lagu kolkoolinta badnaa bariga dhexe u joogay Mareykanka ayaa xitaa la awoodi laayahay in markaasi la badbaadiyo ama la ilaaliyo gantaaladii lagu ilaalin lahaana gabaabsi yihiin. Shiinuhu uu daawanaya marka wax walba sida u shaqeynayaan, ha noqdeen dayax gacmeedyada, nuglaanta saldhigyada iyo saadka, isticmaalka gantaalada iyo weliba xogii ugu dambeeyay.
xogtan waxay mustaqbalka qiimo weyn ugu yeelan doontaa Beijing maxaa yeelay wax walba oo Iran ay gaarto ama xog ay hesho waxay la wadaagaysaa Shiinaha maadaama uu isagu ka caawinayo dhanka satellite-ka markaas sidoo kale Iran ma ku guuleystay wax walba waxa laga yaabaa inaan ka hadalno burburka ha Iran waxay la kulantay burbur weyn kaabayaasheedii ayaa la weeraray waxa la weeraray goobo muhiim ah oo ku yaala dalkaas taasi lama diidi karo laakiin Iran maxay ku guuleysatay Iran waxay ku guuleysatay umuuro xasaasi ah oo aad u ballaaran waliba muhiim ah markaa Beijing waxay arkaysaa saaxiibkeedii koowaad ee Iran oo la burburinayo kaabayaasheeda shacabkeeda khasaare badan ayaa soo gaaray warshadeedii tamarta ayaa markaasi la burburiyay laakiin haddana waxay sidoo kale Shiinuhu u jeedaa guulaha ay gaartay waa inay khalkhalgelinayso maraakiibtii in ganacsiga caalamka iyadoo ku tiirsan yahay markay doontaan iyadoo ay furayso Trumpna uu ka daalay sida uu lahaa waan furnay marinbiyoodka Hormuz annaga ayaa gacanta ku hayna waanu maamulnay iyaduna waxay leedahay qoraal la soo dhigo Truth Social ama X ama markaasi Twitter waxba kama bedelayso lagumana furi karo lagumana xiri karo Beijing waxa sidoo kale aad ogtiin wadamada khaliijka in saaxiibo dhow ay la tahay markaa taasoo suurtagal ay tahay inay ka furto markaas Imaaraadka Sacuudiga Qatar iyo waliba wadamada kale ee khaliijka markaas sababaha ugu weyn ee Mareykanka ugu adkaatay guul weyn inuu ka gaaro waxay ahayd arrinta muhiimka ah ee juqraafiga Hormuz ha noqoto iyo Iran meesha ay ku taalo maadaama dhul aad u weyn ay tahay qiimaha shidaalka waxaase ka sii daran wadaniyada Iran shacab weynaha Iran waxa lagu tilmaamayaa inay yihiin dad aad iyo aad u midooba marka ay la kulmaan quwad dibadda oo soo weerarta markaa sidoo kale siyaasadda gobolka waxa lagu tilmaamay inay tahay mid ka mid ah kuwii ugu muhiimsanaa markaasi maadaama aysan isku tiirsanayn shirkadaha maraakiibta sicir bararka iyo waxyaabaha kale ee la midka Iran maxaa ka caawiyay dulqaadka iyo waliba samirka Iran inay sii noolaato waxa ka caawiyay waqti dheer inay u dagaalanto isla markaana ay tiraahdo cagahayga ayaan ku taagnaanaya falaqaynta waxaan ku eegeynay Shiinaha sida uu noqday kan gadaal ka taagan iyo quwadda kaliya ee marka Iran si aan caadi ahayn iyadoo aan la dareemin cadeen aan lagu helin iyadoo ka caawisay dagaalka isaguna faa'iidooyin waaweyn oo aan ku sheegay ayuu ka helay gudaanta binteedu waa naga intaa channelka subscribe saaro mahadsanidii